halkaan naga daawanaysaa muuqaal baahiya hadda maqtibiyo Faris ee wadanka Talyaaniga ee magaalada Faris ee warka jirno ka sheeg maanta waxaan ku soo qaadanayaa bisha ay tahay 13 bishii afraad 2020 ilaa warka jirno ka sheeg waxaan rabaa inaan ku soo qaato sanad guuridii 62 ee shalay lagu dhigay magaalada Muqdisho taasoo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto farxad gelisay ayna ummadda Soomaaliyeed ay ku dhaataan ama ay aaminsan yihiin ciidamadooda xoogga dalka inay yihiin geesiyaal loo yaqaano in ay ka waabanin cadowga ay meel adag ka istaagaan markii la iska hor yimaado maxamed cabdullaahi farmaajo shalay khudbad dheer ayuu akhriyay oo meelo badan taataabanaysay laakiin khudbadiisa mar kasta waxay ku qotontay qabiil maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa la rabaa waa madaxweyne wadankan ka soo ahay hadda ma aha waa ka soo ahay 4 sano ka hor sano iyo 2 biloodna wuxuu ku meesha ku fadhiyaa xaraan marka maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa la rabaa horta asiga ma isweydiiyay wuxuu meesha ku yimid maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa la rabaa doorashada hadda dhacaysay waxa lagu soo doortay dadka ee baarlamaanka ku imaanayaan maxay tahay maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa laga rabaa in uu almeeno noo qeexo maxaan lahay garbaharey 16 kursi taalo ilaa hadda meel loo wada leeyahay micnaha ay ku taalo iyo micnaha loo dhaqaajilaaday maxay tahay maxamed cabdullaahi farmaajo waa in la weydiiyaa ciidamada markii la qoraay maxaa lagu qoraay ciidamada hadda qoran oo la qoraay maxaa lagu qoraay waa in la weydiiyaa maxamed cabdullaahi farmaajo laba hadal kadib wuxuu dhahay qabiil laba hadal kadib wuxuu dhahay qabiil wadankan qabiil maxamed cabdullaahi farmaajo soo wax ugu qabtay soo wax ugu sameeyay asa waa ka warqabiyaa laakiin waxaan la yaabanahay dadka inay dhageystaan maxamed cabdullaahi farmaajo noocaan ay dhahayaan maxamed cabdullaahi farmaajo qabiilka maanta Soomaaliya ka jiro habar iyo oday asiga waa hadda waad aragteen waxaa la soo doortay xildhibaano oo xulasho ah maxaa lagu soo xushooyaa qabiil marka maxamed cabdullaahi farmaajo waqtigan xaadirka ee la joogo qabiil haddoo ka hadlayo waxaa la rabay inuu qabiilka si dhab uga hadlo oo yiraahdo annaga maanta qabiil ayaan ku qotonnaa qabiil ayaan ku dhisanahay dowladdeena qabiil ayay ku istaagsan tahay laakiin qabiilka ayaan wax lagu haleynin qabiilka nin kale oo qabiil kale wax looga haleynin almeena inuu yiraahdo taas almeena taas waajib waaye marka maxamed cabdullaahi farmaajo safaaradaha maanta jiro waxa uu ka sameeyay waa og yahay maxamed cabdullaahi farmaajo ciidamada maanta jiro waxa ay yihiin waa og yahay baabuurta beebeeyada ah cidda u wado iyo cidda u hayso iyo cidda ku aaminayo waa og yahay ragga qoryaha oo si intuu macnaa oo ka qortay oo asiga waa og yahay qabiilada markii ciidamadan oo ka hadlaya hadda oo leeyahay qabiil kuma jiraan qabiil macna looma baahna inaan qabiil ku sameeyno ciidamada oo qoran oo dhan qabiil ay ku qorayeen odayaal keenayeen odayaasha jufa ahaan qabiil kee waay ninkaas ayaa lagu qoray maxamed cabdullaahi farmaajo ma aha in uu maanta mar laba hadal ba hadoo sheego inuu qabiil ka hadla kaliya qabiil asiga sameeynayo waxaan rabaa oo kale maxamed cabdullaahi farmaajo inaan u sheego wadankan meesha aad geysay waad ogtahay waxaad ugu tala gashay wadankan in labadii isla dhalatay ay qoorta iska gooyaan qabiil iska dhaaf labadii isla dhalatay inay qoorta iska gooyaan ugu tala gashay waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u soo gudbiyo taliyihii ciidamada ee hore ee laga qaaday meesha indha qarsho oo hadlayo indha qarsho waxyaalaha shaqada looga ceeriyay oo looga raacdeeyay wax kale ma aha wuxuu yiri farmaajo sidaad habkaad wax ku wadid ciidan laguma dhiso habkaad wax ku wadid wax ciidamo oo shaqadeeda oo xataa lugta soo geliya ma aha ciidanka waxaa loo baahan yahay in laga soo qorto meel alla meeshaad ka heli kartid inaad ka soo qoratid isu keentid ayagoo aaminsan inay Soomaali ay yihiin laakiin maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan ku sheegaa haddaad odayaasha aad tiraahdid hebelow ii soo qor hebelow ii keen haddaad tiraahdid
oo dadkaas ciidamada ay ku soo socaan adigu kuma yaqaano an ima yaqaano wuxuu yaqaanaa ninka meesha keenay haddii ciidamada Eritrea la geeyay kulli saas lagu geeyay ciidamada la qoray saas lagu qoray marka waa idin soo saaraa ninka la leeyahay generaal indha qarshe oo hadlaayo waa wax yar nala dhageysta dambe oo hadda nabadii nolol aan ku dhaliilayo wali xilligaygii dambe runta marka idin sheego dhibaato badan oo conflict baana dhex martay oo aan isla fahmi weynay madaxweynaha oo mataqaan aan ku diidsanaa sababtoo ahaydna waxa weeye madaxweynuhu wuxuu jeclaa inuu oday hebel yiraa ama wadaad sheekh hebel yiraa soo qor aniga aad ii dhibi jirtay aniga waxa dhihi jiray ma suurtoobi karto ciidankaas lagu qoro ma dhici karto dhabiibuu ka dhaxanaya labadan askari isma aaminaya ninkaani looyal wuxuu u noqonaya odagii soo qoray iyo rijinkii soo qoray iyo wasiirkii soo qoray marnaba geli mayso qadiyadiisa markii asaga raganimadiisa dadnimadiisa marna kuma imaan waa la geeyay meesha ninkii shalay geystay buu aaminsanay waxa lumaysa wadaninimada laga rabay inuu kusoo baxo ninka jidka laga qaato ciidanku ay qaataan wuu ogyahay asaga iskeenay ninuu abaal u hayo malaha kuwa ciidanku saraakiisha xataa abaal ugu hayo sababta waxa weeye kartidiisa iyo aqoontiisa iyo dadnimadiisa iyo caafimaadkiisa iyo muuqaalkiisa ku soo baxay wax favor looma sameyn marka dhibaatada hadda ka jirto oo aan marnaba suurtagelayn in ciidan qaran la helo waa qodobkaas weeye waa in laga baxo oo loo noqdo kii lixdankii loo noqdo oo ciidanka loo daayo volunteer inuu noqdo ninkii rabaa inuu noqdo ninkii rabaa inuu soo galo dabadeedna lagu tababaro qadiid la aaminsiyo qaran inuu yahay oo qarankaas u shaqeeyo oo berrito asagu uu qofka kaliya uu dhihi karaa waa mahadsantahay qaranka Soomaaliyeed markii qarankaas dadka dhigay tababaray aqoon siiyey hub siiyey dhar u geliyay waxa malaysa wiil yar baadi laga keenay oo shalay laba go qabay oo maanta kaba buuda qaba oo alf u xiran yahay oo maanta istaalisurku u xiray ma marayn kartaan how proud he was indha qarshe kelmadaas oo dhahay oo ku hadlay ay ku dagaalameen waa wax jiro wax qarsan ma aha waa wuxuu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta uu og yahay waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan markuu sameynay marqaatiye lahayd marqaatiga noola joogo macnaa ninkan hadlaayo indha qarshe oo hadlaayo wuxuu haystaa marqaati nool oo sarkaal asigoo kala ah marqaatiga nool qoraalkiisa idin tusi doonaa hadhow kor soo saari doonaa laakiin waxa idin sheegaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ninka qabiilka ku qaraabto ninka qabiilka wax ku dhiso ninka qabiilka wax ku keeno waa asiga iyo ninkii la dhihi jiray Xasan Cali Kheyre waxa cadeey xataa odayga ka qabiilka ahay xad oo yiri odayaal ana ilmo soo soocayaan geey inta qabiil oo meeshaas joogto oo odayaal nin kasto waxa la dhahay dadka keen asaa markii ciidamada la qoraayo asaa waxa laga ilaali jiray habar gidir iyo abgaala laga ilaalinayo waxa la dhihi jiray waxa sheegataa war adiga hebel sheego qabiil hebel sheego adiga qabiil hebel sheego adiga qabiil hebel sheego asigoo ka ilaalinayo labadaas qolo inay ciidamada galaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asiga waa ahaa ninka wadankan qabiilka xun keenay asiga keenay inuu ciidamada qabiil ka dhigo ciidamada uu ka dhigo qaran ka dhigo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ciidamo inuu inta ka qaadi dababaad iyo wixii laga soo qaaday Turkiga oo wuxuu geey garbahareegay ciidamada uu ka hadlayo ninka la leeyahay indha qarshe generaal indha qarshe ciidamada uu ka hadlayo waa ciidamadii laga qaadi jiray lama galay ciidamadii laga qaadi jiray waaye oo la isku qabsaday oo markii la waday xataa la diiday meeshaas maxaan lahay taliskaas waxaa madax ka ahay markaas generaal Koronta madax ka ahay ninka tababaray ciidamada oo ciidamadaas tababaray asagoo ahay ciidamadaasna markii la tababaray ciidamadaas waxa soo aruuriyeen Umar Cali Rooble iyo nin kala soo aruuriyeen oo madaxtooyada joogay ayaa soo aruuriyeen oo la leeyahay niman oo waxaan rabnaa ciidooda hala fiiriyo inay sagaar cabaan jeebkooda taraq halaga baara maxal dhahay qorayga oo istakiinka ah niman jaad cunug ma rabno markaas indha qarshe waxay isku qabteen war madaxweyne ciidamada anaga waxaan ku qori jirnay waligeen waa la baxaa magaalada rabaa la tagaa
niman dheer oo xoog la raadinaa waxay rabaan baadiyaha ka yimaadaan nin wax bartay ha ahaado laakiin qabiil lagu qori maayo safay soo galayaan nimankii markaas loo arkay inay ciidankan ka bixi karaan ayaa la qaataa haddii la isu geeyo dadkaas waa dad oo Soomaali ah oo isjecel oo qabiil aan ka koobnayn laakiin haddii tirahdid oraxsin joohar dhinaciisa halaw ha laga keeno xagga ha laga keeno beledweyne ha laga soo bixiyo garbahare ha laga keeno sool ha laga keeno markaa tirahdid ciidamada qabiil ay noqonayaan ciidamada aniga military aniga qorayno nimankan aan soo dirsatay ciidamada iyo qoratiri naga dhaafa marka maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan aad iyo aad uga xumahay in uu soo istaago maxaa la dhahay xoogga dalka ciidamada yararka oo dhalinyarta ah oo dharka ku qurux badan markii la arkayo dharka ay wataan iyo quruxdooda hadda aragtid ayaabaysid laakiin asiga qortay oo xataa ciidamada oo ninkan la leeyahay odawaa oo u shaftaagayo ciidamadaas xataa lacag ma siiyo mushaar ma siiyo ciidamada gorgor iyo ciidamadan lagu leeyahay haramcad ciidamadan lagu leeyahay waran ciidamadaas oo dhan farmaajo lacag ka qaataan ciidamada kale oo militariga ah badbaado qaran iyo lagu sheegayo iyo ayaga isku mushaar maaha isku lacag maaha isku qaab maaha isku hunguri maaha cunada macnaha wax xataa garaamayaasha oo la siinayo isku garaamo maaha lacagta asigay ka dibeendareeyaan farmaajo ay ka dibeendareeyaan ciidamadaas cid kale ma ka dibeendareeyaan marka maxamed cabdullaahi farmaajo ciyaal oo asiga u shaqeeya oo asiga ciidan ay u yihiin oo rabo inuu derbi kasta ku jabsado oo meel kasta uu ku xoogo u rabo asiga inuu dadka ciidan uga dhigo u gaardisiiyo 12 abriil ayaan u dhigaynaa oo yiraahdo ma waxaan meesha qabanin oo waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo oo generaal Koronto oo qoray inuu marqaatiga nool yahay markii waxaas la suubinayay marqaatiga nool waaye macnaa maxamed cabdullaahi farmaajo wadankan midda u geystay waa mid uu ka kicinin waaye haddeerna weli wuxuu taagan yahay inuu wadankan oo rabo inuu burburiyo ma wax kale ma taagna waa cadeystay ninkii ciidamo raray gey garbaharay maanta u diidan macnaa Jubbaland inay midowdo ay 16 kaas kursi ay soo doortaan oo dhibaatadaad arki taagaysid oo dhahayo ciidamadii ninka eelayga ah oo la leeyahay lafta gareen la leeyahay dhahayo celi xildhibaanada xaq u celi xildhibaanada la qaaday halkaas la geeyay heerkaas amroyna wadanka heerka uu geeyay maxamed cabdullaahi farmaajo waa heer aan laga bixi karin waxaan rabaa birito hadduu ilaahay raali ka noqdo safaaradayna inta waxa ka dhacay ninka la yiraahdo Axmed Cabdiraxmaan Sheekh Nuur oo ka shaqay jiray maxaa la dhahay Pakistan waxyaalaha howlaha oo ka qaban jiray Lusaka email oo yimid sheekadaas waa ku daba jiraa investigation aan ku hayaa waxa kale oo investigation ku hayaa oo soo gudbi doona Abdi Saciid Muuse asigana Kenya wuxuu ka hayjiri iyo wuxuu yahay asina waa soo gudbi doona hadduu ilaahay raali ka noqdo waxaan idinku dhaafaa marka nabadgelyo maanta hadalkayga intaas ayuu ku kooban yahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh